midaan daboolmaynin CCA doorkeedu waa midaan daboolmaynin midaan daboolmaynin dib in loo yagleelay habaan dhaqankii duugaabay dalka horumarkiisa waxay doonayaan sharaf dantooduba waxay tahay hidduhu inuusan doorsoomin dad haddoo waddan yahay dushaa laga yaqaanaa hay-adda CCA maduug miin doorkaa hay-adan maduug miin doorkaa hay-adan CCA daryeel dhaqanaa wow diyaar daryeel dhaqanaa wow diyaar daryeel dhaqanaa wow diyaar daryeel dhaqanaa wow diyaar hadaya daryeel dhaqanaa wow diyaar maduug miin doorkaa hay-adan daryeel dhaqanaa wow diyaar daryeel dhaqanaa wow diyaar
تهدي وتوها تبكر مسيان دليل شمان تنمت بادرين تناسينا يقان كي تتكيد وبدك مدان ياقشيد وشغالو ديار يارو تيحتيا وحالك وداد بكر بساولات تتجلي تسور يد نواد من أمان مدنا ودنا قدر يتبكى sida ay u soo abaabuleen waxaan kale u mahad celinayaa hay'adda CCA ee ayadana barnaamijka hidaha iyo dhaqanka markasta diyaar u ah inay hormarino waxaan rabaa inaan u mahad celiyo haweenka gobolka Banaadir gaar ahaan haweenka degmada Yakshiid CCA وسلامتي دك مدينة ياخشيد اسكورت نواكو أركي حماستي نواكو لشايلة وقولا إرسيو سلامتي CCA وسلامتي gudoomiyaha hay'adda CCA asagana waxaan rabaa inaan iraado mudane gudoomiye aad u mahadsantahay maxamed cajiib oo runtii jecel dhaqanka iyo culture-ka meeshaasaan isaga dhownaay aniga asaga aad aan u jeclahay dhaqanka marka ciyaarihii folklore dansiga waa arkay waa wax xusuus aad lagu galo waxaan rabaa reer Yakshiid inaan iraado nabad meelayna jirin nolol ma laha nabad meelaysan jirin nolol ma laha ururka haweenka degmada ubaxa quruxda badan ee degmada iyo isboortiga degmada Yakshiid idin ma iloobi karo iftiinka degmada tiin reer Yakshiid guud ahaan waa idin salaamayaa
waxaan rabaa inaan u hambaliyeeyo hay'adda CCA ee ka shaqaysa horumarinta bulshada isu keenidda bulshada dhaqanka iyo dhan walba ka qabata magaalada caasimadda Soomaaliya waxaan leeyahay aad baad mahadsantihiin sii wada kana sii ballaadhiya shaqada aad wadaan waxa u baahan dalka iyo dadka iyo diintuba way u baahan tahay in ummadda Soomaaliyeed mar walba la isugu yeedho oo la yiraahdo maxaa idin bannaan maxaa qabsan kartaan dhammaan waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh salaanka dib hay'adda wacyigelinta bulshada CCA waxaa sharaf iyo qiimo iyo wanaagba u ah in ay kulankan oo lagu soo nooleenayo dhaqankii ummadda Soomaaliyeed ee burburka 25 sano jira qayb ka noqda inay dib u soo nooleyso farxad ay u tahay hay'adda run ahaantii hay'addu waxay u dhisan tahay rabitaanka iyo jiritaanka iyo baahida shacabka Soomaaliyeed sidaas awgeed ololihii aan wadnay sanadkan 2015 oo ugu horeeyay in soo nooleynta dhaqanka ummadda Soomaaliyeed doorka ugu muhiimsan aan siino wuu socdaa waana sii wadi doonaa waxaana ballan qaadi doonaa sanadka soo socda haddii oo Ilaahay ka raali noqdo oo caafimaad iyo wanaag Ilaahay nagu gaarsiiyo in meesha oo maanta uu joogo meel ka sii wanaagsan aan gaarsiin doono runtii waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay in xafladdaanu galabta halkan ka dhacdo lagu maamuusayo laguna tayaynayo dhaqanka Soomaaliyeed ay runtii taabagelisana hay'adda CCA waa u mahad celinaynaa CCA saaxiibkay Maxamed Cajiib oo gudoomiye ka ah iyo Sandheere oo howlwadeennada ka ah runtii aad ugu mahad celinaynaa annaga haddana reer degmada Yaaqshiid waxaan habeen maalin u taaganahay inaan dhaqanka kor u qaadno intaas kadib waxaan u mahad celinayaa hay'adda CCA oo barnaamijkan qabatay dhaqanku waa wax weyn qofku hadduu dhaqankeeda wanaagsanaado diinkeeduna uu fiicnaanaa marka hay'adda CCA meel fiican ayay ka bilowday waan u mahad celinaynaa dhaqanka fiican waa qayb ka mid ah qofka shakhsiyadiisa intaas kadib aniga waxaan ku dhashay degmada Yaaqshiid laanta heegan aniga aan waaxdaas aan ka mid ahay